aragnaa dukumiinti aan ku hayna aniga inay ingiriis oo hadda idila hadlayo media ka hadlaya gacanta ku hayo marka aan leeyahay hal canugnimo ka baahan yahay 30 canugnimo ka baahan tahay waxba isku ma darsan karaan ganacsiina ma wada yeelan karaan marka aan leeyahay Itoobiya 100 milyan bay maanta cageynaysaa Soomaalina waa 12 milyan oo wili kala maqan dawladda hadda joogtana ma loo idmanba waayo ayadana dalka la tolin oo sharci tala aan la helin dadka lama toli karo dadku waana dhimanaya waana dhalanaya mid labaad waxaan u wanahay wana awood xumayo u sheegaya baarlamaanka fadhiyo oo 300 oo ruux ku dhow ayaa naftirkooda niman dal soo doorto si legal ah ku yimid aanan ahayn baarlamaanka because sharcigoodu waa federaal ay ku fadhiyaan 75 qodob ah isla markaana meesha laga soo dhisay cidda u soo yeedisay waan ognahay ninka baarlamaankaas ama siiskaas ku fadhiyana lacag buu ku yimid si legal ah qabiilkiisa uma soo dooran ugu mana aynan imaan marka waa dad gadan oo la gada karo waay macallimiinis warkaygu waa war dad la gada karo ayaa fadhiya dad wadaniyad fog leh ama shacab doortay ma jirto midda saddexaad oo aan lagu saxiixi karin sharciga federaalka naftirkiisa ayaana loo sameyn aftiha iyo maya midda saddexaad wax loogu darsan karin ama saxiixooda oo Soomaaliya u noqon karin waxa way Soomaaliya kala go'an dalkii ku kala go'an dadkeena ku kala go'an midda afraad oo wax la isugu dari karin colaadihii dhacay laga meeshi gobol degmo tuulo ayay colaadii gaartay dad isku difaac ayaa aana urgumeed kala qabo oo habeen iyo maalin dagaalkooda xalintooda iyo khilaafaadkooda lagu jira marka dad saas ah iyo dal saas ah iyo dawlad dhisan 2018 sano ayuu sharciga Itoobiya dhisan yahay farashadii ka timid Abiib oo soo gashay qabla yani darajadii Nabi Ciise ka bacdi haddii ay tahay imperial iyo haddii ay tahay socialism iyo hadda oo maaragtay dimuqraasiyad fiican aan lagu sheegi karin ayuu sharcigooda dhisnay manhajkaas oo hadba gruubkii yimaada manhajkii Itoobiya oo dhisnaa ay ka gudbi karin ayay leeyihiin anagu marka dalahaan waa u gurnay ciidamadii xoogga dalkaana dhisnayn kuwii baddaana dhisnayn kuwii cirkaana dhisnayn saraakiisha maanta ciidanka hogaaminaysa rag akademiga ama istaraatiijiya aanan ahayn jawaadiyo shaar loo biyay ayagii naftirkooda Soomaalinimo isugu darsanayn oo qabaa'il isugu darsan marka dal halkaas heerkiisu maray iyo dawlad 2018 sano dhisan oo haddana 100 milyan iyo 12 milyan ah ma samayn karaan wax la yiraahdo wax kan la yiraahdo maxay commercial committee style system never muxuu ku dambeyn karaa waa been niman wada casheeyay ama wada qadeeyay oo miiska isku dhowla baneeyay ayaan u arkay intay gabadh Soomaaliyeed noo tahay laga yaabo colaadda hadda Itoobiya ay dalka gelisay markaan burburnay ka bacdi ay inta gobol ama degmo ay u geysatay inta dad xasbuqday ayadoona kaleem iyo qaandhow laga sameeyna shacab ahaan weligood isma aamin karaan yaa yuuri iyo dool hadday Itoobiya iyo Soomaaliya ay heshiiyaan caalamka waxaan u sheegayaa yaa yuuri iyo dool inay heshiinayaan assalaamu calaykum